tobankii sano ee ugu dambeeyay aan ku jiray mihnada warbaahinta waxaan u soo joogay dhacdooyin xanuun badan kuwaasi oo mid kasta oo kamid ah ilaha dareen gooni ah. dhacdooyinkaasi waxay ahaayeen kuwa taabtay dhammaan bulshada. laakiin 22kii bisha December waxa ay ahayd maalin igu reebtay uur ku taalo iyo xusuus madow. waxaan waayay 4 qof oo ii ahaa walaalo iyo saaxiibo shaqo. waxaan 2 kamid ah ku kulannay goobteena shaqo qiyaastii 30 daqiiqo ka hor inta aanay ku nafwaayeen masiibadii shalay ka dhacday bar kontarool oo ku taala tiyaatarka qaranka. Allah u naxariistay Wariye Cawil Daahir salaad oo kamid ahaa dadkii ku geeriyooday qaraxyadii Sabtidii ka dhacay Muqdisho. waxa uu ahaa rugcada ka baxay warbaahinta Soomaalida. waxa uu inooga tagay dhaxal iyo dardaaran aan marnaba duugoobayn. waxa uu ahaa samafale caawiya dadka danyarta. waxaana uu rajeynayay in jiilkeena soo korayo uu reebo aqoon iyo waayo-aragnimadiisa ku aadan warbaahinta. وحجينا قراينا وريد عدانا ومكيس ولا جاهل وإذا تلاقوا عبد الله عنا وحكي xirfadiisa suxufinimo waxa uu si adag ugu helin jiray jiritaanka qaranimada dalka. waxa uu sameyn jiray doodo kala duwan oo qaarkood lagu garab istaagayo dawladnimada Soomaaliya. taasina waxay ahayd go'aan nafurnimo ah oo uu noloshiisa u qaaday. Allah u naxariistay Wariye Cawil waxa uu sidoo kale door weyn ku lahaa hanaqaadka warbaahinta madaxa bannaan ee dalka. waxa uu qayb weyn ka soo qaatay idaacaddii Hon Afrika ee la yagleelay dhammaadkii 1999kii. xilligaasi oo ay adkayd in lagu dhiirado hirgelinta warbaahin madax bannaan maadaama dalku uu ka soo baxay colaado sokeey. marxuum Cawil kuma koobneen oo kaliya ka shaqaynta warbaahinta. waxa uu sameyn jiray suugaanta wadaniga ah kuwaasi oo ku qotama xaaladda dalka. erayadii ugu dambeeyay ee uga tagay fanka Soomaalidana waxay ahaayeen sidan.